garan maysid cimrigaagu inuu dheeraan iyo inuu gaaban, garan maysid khaatimadaadu waxay noqon doonto, laakiin haddaa waxaad garanaysaa inaad jidkaa iska saaraatid oo ku toosnaatid, lacalla adigoo quman uunin mar naftu kaa baxde, lacalla mucawiqaadka waxyaabaha dadka jidka weydaariyaana waa tiro badan yihin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa maalmaha dambeeya ayaamu sabriga la yidhaahdo diinta qofka haystaa uu konton idinka idinla mida la ajar yahay baa la yidhi. waxaanu ku tilmaamayaa sidii nin dhuxul daba haystoo kale u ekaan doonaa. yacni waxaa looga dan leeyahay dhuxusha daba la sheegay waxa weeyaan tacab iyo feejignaan tiro badan bay u baahantay. ilaahina qur-aanka wuxuu inagu leeyahay faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh, waryaadheen xagga rabbi u toosnaada. faاstaqiimuu ilayh wastakfiruuh, wixii dembi idinka dhacana ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista. qur-aanka laba meeloodoo ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray dadka ammaan la ammaanayo iyo ajarka ay leeyihin weynidiisa si laynoo jeclaysiiyo. oo waa maxay? ina aladiina qaaluu rabbuna allah, kuwa yidhaahda baa ilaahay yidhi allah noo rabbiya, rabbigayo waa alle. uma istaqaamuu baa ilaahay yidhi, dabeetana ku toosnaada weedha allah ii rabbiya. macnay sheegaysaa, macnaha ku toosnaada baa ilaahay leeyihi. kuwaas malaa'ig baa ilaahay ku soo dejinaya, malaa'ikatu raxma. oo maxay leeyihiin marka nafta laga qabanayo laba shay baa qofka bini aadamka markuu dunida ka baxaya warwar ku haya. meesha uu ka tegayaa warwar bay ku haysaa, oo talow caruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo maxay noqon. ilaa adduunku isku dhamma ma lehe, maraad sileeday shaqadii waa dhammaysay yaa nafta kaa qabta ma jirto. mar kasta oo wuxuu baad sileeday war waxbaa dayacane, talow siday noqon kuwani. waxaad kaloo ka warwaraysaa oo kaaga sii daran war talow maxaa kaa horeeya, war wixii aad samaynaysa alla ma kaa aqbala, war ma kuwa naartaad noqon mise kuwa jannadaad noqon, xaalkaas siduu noqon, warwar baa kugu jira. ilaahay wuxuu leeyahay dadkii toosnaan jiray malaa'ig baa u imanaysa oo u bushaaraynaysa. maxaa loogu bushaaraynayaa? anlaa takhaafuu walaa taxzanuu, ha cabsanina oo waxa idinka horeeya ha ka cabsanina baa laleeyahay. kuwa nabadgala ka midti, ha tiiraanyoonin oo wixii aad ka timi ha ka murugoonin baa la yidhaahaa. rabbigood bay leeyihin waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun, jannadaan idiin ballan qaaday ku bushaaraysta. fii suurati alaxqaafna sidoo kale baa ilaahay leeyihi ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu, kuwa yidhi allah noo rabbiya ee ku toosnaaday falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilaahay. cabsiyo korkooda maha oo waxa soo socda kama cabsanayaan, walaa hum yaxzanuun, murugiyo tiiraanyana ma hayso oo wixii ka tegay ka murugoon maayaan. ulaa'ika asxaabu اljannati khaalidiina fiiha jazaa'an bima kaanuu yacmaluun baa ilaah yidhi. kuwaasi waa reer janno, waana ku waarayaan iyadoo lagu abaalmarinayo wixii ay soo camal fameeyeen daraaddeed sababtii. waxaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegayaa taasi waa aakhiro iyo waxa la helayo adduunka. ilahay wuxuu ina leeyay waan low istaqaamuu cala اطariiqati laasqaynaahum maa'an gadaqa linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada. hadday ku toosnaadaan baa ilaahay leeyahay jidka rabbi, hadday ku toosnaan lahaayeen waxaanu ka waraabin lahayn baa ilaahay leeyahay biyo badan oo yacni badhaadh iyo barwaaqaanu ku noolaan lahay. roob iyo abaar iyo mushkilada waxaynugu itixaamay, toosnaantii baa laynaga waayay. haddaad toosnaan lahaydeen baa ilaahay leeyihi waa laydin badhaadhayn lahaa, biyaha waa ka dhargi lahayde. laakiin adduunina mar kastaba imtixaan iyo haddana alla waxaynu noo sheegay marka layna dhargiyana ilaahay wuxuu yihi linaftinahum fiih, isaga laftiisu waa imtixaan kale. inta badan bini aadamka muslimka ahay imtixaanka dhibta ah wuu ku toobad keenaa, faqrigiisa u muuqda. marka dhibtu ku qabsato yaa rabbidaa badata, dheragta si rabbiba waa la ilaabaa. inta badan labada imtixaanka dheragta khatarsan.
imtixaanka dheragta kibir baa bilaabma iyo qooq iyo balacab iyo kibir oo dhan baa bilaabma soomaalidana waa taqaaneenoo xataa colaadahooda iyo dagaaladoodu markay abaartu dhacdo way isu nasan jireen iyo allah bay odhan jireen marka gugu u da-ana rabshadaa bay bilaabi jireen ilaahay wuxuu ina leeyahay markaas linaftinahum fiih waman yucrid can dikri rabbihi yasluku cadaaban sacada ninkii ilaahay xuskiisa ka jeesta waxaa la marin oo la gelin cadaab adag fuuritaankiisu haddaba ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina leeyahay isagoo nebi maxamed la hadlaya laba aayadood oo kale fastaqim kamaa umirta fastaqim kamaa umirta baa ilaahay nebigu ku yidhi wastaqim kamaa umirtana fii suurati shuuraa bay ku jirta fii suurati huud ilaahay wuxuu ku yidhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macak walaa tadqow u toosnow sidii rabbi ku amray hadda waa nebi maxamed cidda lagu leeyahy suuratu huud aayaadkan intaan laga warramin aayaadka ka horeeya wixii nebiya soo qabsaday baa ilaahay ka warramay nebiyullaahi nuux nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi saalix nebiyullaahi shucayb nebiyullaahi luut nebiyullaahi muusa waxaasoo ambiyaaba qisaskooda ilaahay kaga warramaya nebiyullaahi huud iyo tolkood wixii kala qabsaday markii ambiyadaa laga warramay iyo wixii lagu sameeyey iyo wixii la kulmay iyo waxay dhib arkeen ayaa ilaahay nebi maxamed markaa awaamir siiyey nebi maxamedna waxaa la yidhi fastaqim kamaa umirt waman taaba macak walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir u toosnow baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala sida rabbi ku faray adiga iyo inta kula socotee ilaahay u toobad keentayba